بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. marka hore Allah ayaa mahad leh oo igu guuleeyay halgankii waqtiga dheer aan soo galay sidii aan uga mid noqon lahaa golaha shacabka Soomaaliyeed. waxaa sidaa darteed aan u mahad celinayaa ergada sharafta leh ee sida aqlabiyadda leh igu codeeyay goobtan oo aan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waxaanan rajaynayaa in xilkaas aad kalsoonida u siiseen inaan idinku shaqayn doono. guushan maanta aan halkan ku gaaray ma aha guul aniga ii gaara, waa guul u gaara guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo taageero iga muujiyay meeshii uu joogay. dad kala duwan oo gobollo kala duwan iyo kuwa dibadda jooga ayaa maaragtay u taagnaa sidii aan ugu guulaysan lahaa. sidaa darteed aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa. waxaa sidoo kale guushan ay ahmiyad iyo qiimo u leedahay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo runtii guushan iyaguna gaaray. sidoo kale guushan maanta aan gaaray waxay astaan u tahay oo ay calaamad u tahay dadka saaxiibka u ah adkaysiga, sidoo kale calool adayga iyo sidoo kale inaan la quusan. sidaa darteed waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada Hirshabeelle oo runtii si wanaagsan u maamulay doorashada. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ergada. waxaan u mahad celinayaa saaxiibada sharafta leh ee maaragtay ii soo gurmaday oo qaarkood ka yimid magaalada Muqdisho si ay garab istaag iyo solidarity ugu muujiyaan. runtii dad muhiim ah ayaa maaragtay Muqdisho ka yimid oo ay ka mid yihiin Ambassador Yusuf Garaad, Cabdinuur maaragtay Maxamed Axmed. waxaa kaloo jira dad xildhibaano ah oo maaragtay xildhibaan wasiir Khadiija ay ugu horeyso oo mar hore magaaladan ka safri lahaa oo dartay maaragtay u joogay oo xildhibaan wuxuu ka mid yahay. dadkaas oo dhan iyo kuwii kale soo raacay Muqdisho baan iga soo harin ee halkan ila yimid dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. runtii dad badan marka la yiraahdo qofa musharax ayaa guuleystay waxa maankooda ku soo dhacday mar walba ka fakaraan qofkaas maaragtay yuu codka siin doonaa iyo xagee aadi doonaa. laakiin aniga waxaan idin sheegayaa inaan ahmiyad weyn aysan ii ahayn cidda aan dooranayo. qof Soomaaliyeed aan ahay, hal cod aan leeyahay, musharaxiinta Soomaaliyeed way badan yihiin. qof kamid oo markaa ila tahay inuu dalkan iyo maaragtay xaaladiisa uu dan u yahay iyo diintaba ayaan u codayn doonaa. marka wax ahmiyad uu leeyahay male, laakiin waxa ahmiyad ii leh sidii dalkan xaaladda uu ku jiro aan wax uga bedeli lahayn. sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaannimada oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono, diinta difaaci doono, qarannimada difaaci doono, mar walbana aan u taagnaan doono astaanta Soomaalidu ay garabka igu siisay. dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin intay daawanaysa, intay daawan doonta iyo inta halkan ila joogtaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.